imaatinka madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdiga uu hogaaminayo isugu jira wasiiro xildhibaano saraakiil iyo mudanayaal kale ayaa si weyn looga sugayay degmada Burtile waxaana looga hortagay afaafka hore ee magaalada halkaasi oo mid ugu gacan qaaday salaadiintii nabadoonnada iyo waxgaradkii soo dhaweyntiisa u taagnaa madaxweynaha dowladda Puntland ayaa markii uu soo galay gudaha magaalada Burtile waxa uu salaan iyo marxabeyn ka wada gudoomay dadweynaha aad u fara badan oo watay boorar iyo calamo isagoona lug ku maray ilaa xarunta maamulka degmada halkaas oo uu kula hadlay shacabka reer Burtile dhinaca kale madaxweynaha ayaa kulamo gooni waxa uu la qaatay Islaam Bashiir Islaan Cabdillah Islaam Faarax iyo sidoo kale nabadoonnada iyo waxgaradka iyo maamulka degmada Burtile soo dhawaada degmada Burtile ee gobolka magaalada runtii madaxweyne haddii aan tafaasiil ka bixino degmada amnigeeda iyo securitygeeda alxamdulillah aad iyo aad buu boqolkiiba boqol u wanaagsan yahay dadka reer Burtile waxay mar walba had iyo jeer ay u taagan yihiin in ay soo dhaweeyaan madaxda dowladda Puntland iyo dhammaanba dadka reer Puntland runtii maanta waxay noo tahay maalin taariikhi ah waxay noo tahay maalin aad iyo aad waxa weeyaan aan ugu xamdinaqayno ilaahay subxaanahu wa tacaala ka gadaalo ciidanka amniga iyo saraakiisha dowladda Puntland oo ayagu mar walba iyo had iyo jeer garab taagan soo dhaweynta madaxda Puntland mahadcelin ballaaran soo jeedinaynaa dhammaan dadka reer Burtile sida sharafta iyo qiimaha leh iyo wadanimada leh ay nagu soo dhaweeyeen degmada ay nagu hor yimaadeen magaalada banaankeeda guud ahaan maamul iyo shacab intaba sidii uu sheegay gudoomiyaha degmadu maanta waa maalin weyn weeye waa maalin farxadeed waa maalin madaxweynihii Puntland uu waqtigiisa qaaliga u soo horay inuu soo booqdo degmada tan waxaan jecelahay sida hore loo sheegayba maadaama waqtigu uu kulul yahay inaan insha allahu tacaala sida laga codsaday baan ku soo dhaweeyo madaxweynaha rushahay waqti adagna ay tahay runtii sida muddo weyn ee wanaagsan aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan kaga mahadnaqayna waan rajaynayaa ilaa galabta inaan ururada bulshada qeybaheeda kala duwan aysan ragno iska waraysano xaaladda bulsho xaaladda amni xaaladda dhaqaale ee degmada Burtile ee nawaaxigeeda ku nool inaan idin waraysano ayaan idinkugu nimid insha allah waqti fiican baan soo helaynaa oo aan si fiican isu waraysano diinayga amniga degmada taas ayaa baraayatada koowaad ah muhiimadda koowaadna waxaa iskale amniga meel kastoo aan joogno Puntland waa la socotaan horumar kastaaba wuxuu ku xiran yahay meel kastaaba amnigeed intuu la eg yahay inta uu jiro amnigeedu ayaa horumarkeeduna jira marka inaad gacan bira ku qabataan amnigiina inaadnaan ogolaan sharwadayaal iyo shabaab iyo dad xille in ay idinku soo dhex dhuuntaan nabadgelyadiina ay waxyeeleeyaan inaad aad uga dadaasheen ayaa idinka rajaynaya waxaa ku xiga waxaa weeye magaaladani waa magaalo weyn waa magaalo dadka aragtay oo tirada badan ay degan yihiin waa magaalo barwaaqaa weeye marka in horumarkiina iyo tiradiina iyo tayadiina isla kaadaan baa laydinka rabaa macnaheedu waxaa weeye degmadani Puntland waa la socotaano mabda'eedu waxaa weeye in la isku tashado in Puntland isku tashato in gobol walba iyo degmo walba ayadu isku tashato weeye dawladduna wixii taageeraha markaas dheeraada ay geysan karto inay ka geysato waxa ugu horeeya marka si horumar loo gaaro waxaa waajib ah dadku inay maamul yeeshaan marka inaad ismaamushaan ismaamulka dowladnimaduna wuxuu ka bilaabanayaa waxaa weeye inaad soo dhisataan golo deegaan oo wanaagsan oo itijaah wanaagsan leh oo yacni fikirkiisu uu yahay horumarinta degmada aan wax kale ku mashquulin inaad soo dhisataan golihiina deegaanka si degdeg ah si ay uga shaqeeyaan horumarka ayaan rajaynayna Puntland Burtile waxay ka mid tahay degmooyinka hadda loo asteeyey in ay ka mid noqdaan barnaamijka la yidhahdo JPLG-ga marka barnaamijkiisu u abuurmo oo yacni unug wanaagsan u yeesho oo uga hirgalo degmada waxaa la rabaa golo deegaan oo wanaagsan oo maskaxdiisu ay tahay in ay horumariso degmada dadka ugu wanaagsan aqoonyahankiina culimaadiinkiina gabdhihiina aqoonyahankiina
waxaan rabaa inaad isu tagtaan oo la timaadaan golo deegaan oo ka tiro wanaagsan ka tayo wanaagsan kii hore degmada uga jira inaad la soo timaadaan oo aad abuurataan ayaan idinka rajaynaa si degdeg ah dilayna guleed jaamac saajid warbaahinta dowladda Puntland magaalada Burtinle.